imaanshiyaha hogaaminta hogaamiye Rajab Tayyip Erdogan ee dalka Turkiga wax weyn ayaa iska bedelay saamaynta gobolka, hanaqaadka dimuqraadiyadda, kobaca dhaqaalaha, jaangoynta siyaasadda iyo qadiyadaha qaar ee aan qarankiisa looga maarmayn. Turkiga tan iyo markii uu xukunka qabtay si rasmi ah hogaamiyaha iminka talada dalka Turkiga haya Rajab Tayyip Erdogan 2002 waxa uu dabcan isbedel muuqda ka sameeyay siyaasadda gudaha ee Turkiga isagoo xooga saaray mudnaanta mahuraanada muhiimka ah ee quseeya gobolka iyo galbeedka. hanaqaadka hogaamineed ee Rajab Tayyip Erdogan dhab ahaan waxa uu saanta dhulka la helay 2002 si guud iyo si gaar ah hanaqaadkiisa waxa uu bilow iyo dadiilo horle u ahaa Turki sii gaboobaysay, Turki u baahneed helitaanka jid jadiid ah iyo Turki ka baxsan xayndaabka xagjirnimo ee reer galbeedka. waxa uu aas-aasay, hindisay, hal abuuray, hagaajiyay, hormuudna u noqday inuu waddanka uu ka bilaabay siyaasad dibadeed oo xuduudeeda iyo caqligeeduba uu yahay hanaan military, waxaana uu kulaalay karkana uu saaray hirgelinta siyaasad lagu qeexay dimuqraadiyad sal adag ku taagan, taasi oo uu ku sii adkaystay hamiga ku biiritaanka midowga Yurub, waxaana sida muuqata ay fursad u siistay dhismaha xisbigiisa oo ay ka soo baxeen wuxuu raad raacay jihada siyaasadeed ee mudnaanta u leh nidaamka saldhigga Turkiga, waxaana laga soo bilaabaa xilligii dib u habaynta iyo barwaaqada ee 2000 ilaa saamaynta dagaalka Suuriya ee dariska la ah, sheego ku saabsan fursadaha la lumiyay iyo isku dayada dib loogu mideynayay xuduudda Turkiga. Erdogan waxa uu sahmiyay siyaasad muhiim ah taasoo ugu dambeyn guul u horseeday, waxaana uu si dhow ula socday siyaasadaha kala qaybinta, cadaawadda iyo nacaybka ku dhisan ee Mareykanka iyo Yurub, taasoo ku qasabtay in uu ka xarag furto uuna u jejeersado dhinaca iyo xuduudda muuqata ee Putin. Ruushku uu og yahay Putin iyo dunida kale inay go'doon ka yihiin, balse Erdogan siyaasaddiisa ayaa tustay inay tahay in lagu faraq xirto siyaasad ka caagan tan galbeedka iyo Mareykanku. waxa uu wax walba oo gudaha dalkiisa ka jiray uu ku bedelay nidaam dimuqraadi ah kaasi oo u muuqda hanaan ka hirgalay gudaha dalka. waxa uu markasta ku doodaa kuna doodi jiray mudnaanta ay leedahay hirgelinta dareen dimuqraadiyadeed oo dadweynuhu ay la dhacsan yihiin. waxa uu qiray in Turkiga uu dabcan yahay dal fahamsan dareenada adkaysiga, diidmooyinka dulqaad darida iyo fahamka hanaanka hanaqaadka dowladnimo, isaga oo salka u dhigay hanaan dhaqaale oo sal adag leh, xoojiyeyna nidaam maamul oo maaliyadeed oo dunida oo dhammi soo wada jiita. waxa uu hormuud u noqday hirgelinta hindisaha maamul buuxa oo madax bannaan, nidaam la mahadiyey oo qaangaaray iyo cudud muuqata oo Turkiga ah. militariga waxa uu ka dhigay hanaan lama taabtaan ah, dhaqaaluhu waxa uu ka soo qaaday qorshe qaran, siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu ka dhigay go'shaal u gaar ah qarannimada Turkiga ee matalaysa malaayiinta muwaadiniinta dalkaas. maanta Erdogan waxa haysata laba daran mid dooro, midi waa Putin iyo maamulkiisa oo baraaracad ka badbaadiyey qorshe xukunka looga tuurayay iyo isku day qaarajin ah oo galbeedka iyo sidoo kale Mareykanku ay soo hogaamiyeen, iyo in uu ka badbaaday guud ahaan dhagartaasi isaga oo garab siyaasadeed, sahan sirdoon iyo tilmaamo toganba ka helay dhinaca iyo fariinta Putin. maanta dagaal qaraar ayaa dunida ka jira, dhaleeceyn waaweyn ayaa taagan, Ruushka ayaa la wada eegayaa, Putin qorshihiisa ma cadda, isku dayo badan ayaa muuqda, isaguse weli siyaasad ku dhisan dabacsanaan diblomaasiyadeed ayuu ciyaarayaa. waxaase la isweydiinayaa goorta xayndaabka diblomaasiyadda loo ragi doono go'aan qaraar oo qadiyadda qaranka ah. Ukraine way la daalaadhacaysaa xakamaynta Moscow, muddo dheer ayay ku qaadatay, garab muuqdana kama haysato galbeedka iyo Mareykanka, sidaas awgeed waa ay dadaasho haddiiba intaani ay dagaal kala hortagtay xuduudda weyn ee muuqata.